nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo fadhiya xadiidka bukhaari ayaa nin soo maray qoladii la fadhido yidhi bal ninkaa ka warrama waxay idhaahdeen waa nin hadduu gabadh ku weyddiisto waa nin gabadh la siiyaa bay idhaahdeen hadduu shafeec erge kuugu yimaadana waa nin ergadiisa la aqbalo hadduu hadlana waa nin la dhegaysta bay idhaahdeen mudan in la dhegaysto yacni bini aadamku wuxuu wax ku qiimayn jiray haddii gabadh lagaa soo doontana waa nin dumarka la siiyo hadduu dankaa yeesho shafeeca kuugu yimaadana waa nin magacio ergadiisa la aqbali karo hadduu hadlayana waa nin la dhegaysan karo nebigu wuu iska aamusay ma comment garaynin mid kalaa soo maray markaasuu yidhi kaa ka warrama markaasay idhaahdeen hadduu gabadh ku weyddiistana mid loo guuriyo maaha hadduu erge kuugu yimaadana ergadiisa ku la aqbalo maaha hadduu hadlana ku la dhegaysta maaha bay idhaahdeen yacni nebigu wuxuu barayaa saxaabada mawaasiinta maxaa wax lagu qiimeeyaa bini aadamka see loo qiimeeyaa dabeetana wuxuu yidhi lamil'u haada min daak kaa hore iyagu lahaayeen waa wax walba wuu yahay dhulka muggiyo kaasa ninkan baa iskaga khayr badan buu nebigu yidhi waa hal nin iyo dhulka muggiyo kii kale ah maxaa halkan nin iyo dhulka muggii isweydaariyey waxa isweydaariyey mawaasiinta wax lagu qiimaynaya kala nooc ahaa waayo dhulka muggiyo naar ku sii socda geeddi naareed ah faa'iida ma leh xabad jannada u sii socotaa dhaanta soo maaha hal qof xagga jannada u socda iyo dhulka muggiyo xagga naarta u guuraya dee faa'iida ma leh walidaalika buu nebigu wuxuu leeyahay dhulka muggi oo kaasa qof quroo kaasaa dhaama ayuha alaxibba waxaa dhibtu inaga haysataa waxa weeyaan dadka mawaasiintii baa laga qalday wixii ay wax ku qiimayn lahaayeen waxay wax ku qiimayn lahaayeen baa waxa laga dhigay wax bini aadamku ka qiimo badnaa gaadhi iyo daar iyo waxaasi maaha wax lagu qiimeeyo qofkii mise daarood buu leeyahay qiimihiisu maaha mise gaadhuu wataana qiimihiisu maaha gaadhigu wataa noocuu yahayna qiimihiisu maaha qofku intuu rabbigii ku xidhan yahe u dhow yahay buu qiimihiisa dhabtaahi yahay taasun baana aakhiro marka la ysugu yimaado wax anfacda adduunka inta la joogana kadeedka qofka ka biisa